Amintu waa 11 habeenimo iyo qadar 30 daqiiqo ah. Waxa ay wax yar ka harsan tahay 12 habeenimo saq dhexe oo ay ku eg tahay waqtiga loo ogol yahay inay shaqeeyaan goobaha lagu caweeyo ee xeebta Lido. Waxaynu dabagaleynaa soo gudbinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta hoteelada ku yaala xeebta Lido. xarunta shabakada wararka kulmiye ayaynu ka baxnay inagoo ah tiro howlwadeena KNN ka tirsan. socdaalkeena habeenimo waqti badan nagama uusan qaadan. waxa aynu si fudud ku gaarnay xeebta Lido sida uu qorshaheenuba ahaa. waxa aynu diiradda saarnay goobaha la sheego inay hoy u yihiin dhaqan xumada Muqdisho. waxaynu isla garanay inaynu saf u galno gelista mid ka mid ah hoteelada halkaasi ku yaala. baaritaan kadib waxaana loo ogolaaday halka lagu soo dhaweynayo dadka hoteelkii galaya, iyadoo oo ay noo suura gashay inaynu gudaha la galno aaladeena coddoobista si qarsoodi ah. waxaa halkaasi fadhiyay wiil iyo gabar dhalinyaro ah. waxay noo sheegeen inaynu bixino lacag dhan $15 oo ah furaha lagu galo gudaha hoteelka. waxaan dhagaheena soo gaaraya dhawaq muusig aan loo aaba yeelin. bixinteena lacagtaas kadib ayaana loo jaray warqad ogolaanshiyo ah. waxay indhaheenu qabanayeen saf dheer oo ay ku jiraan dad u badnaa dhalinyaro, wiilal iyo gabdhaba leh. waxa ay ugu yaraan labadii qofba isla isticmaalayaan hal shiishad. waxaa dhex wareegaya dhalinyaro u badan hablo oo la gaaf wareegaya dabkii lagu shidi lahaa shiishadda, iyo hadba qofka waxa uu ka dalbado ayay si degdeg ah ugu keenaan. weli si fiican uma sii gaarin hoolka ay muusigu ay naga soo gaarayso. waxaa noo dhawaaqday gabadh aan ku qiyaasnay da'aadda 19 jir. waxa ayna cod hoose inagu weydiisatay inaynu ka bixinno lacagta ay ku geli lahayd gudaha hoolka iyo waxa ay ku dalban lahayd badeecadaha balwadda taalla halkaasi. innaga oo aan garan halka aynu howsha ka bilaabi lahayn ayaa dhanka kale waxaa inooga yeertay gabar qudheedu aad u da'yar. waxaa ku yar guud ahaan gabdhaha halkaas jooga asturnaanta. waxa ay inoo sheegtay inay soo dhaweynteena ku qoran tahay. waxa ayna durbadiiba la soo booday, halkan fariista, imise shiishad ayaan idiin keennaa iyo maxaa ku soo daraa oo aad isticmaalaysaan, iyada oona naga qaaday warqadiina loo soo siiyey ogolaanshiyaha gudaha. innaga oo is-eegeenna ayaa mar kale waxay inoo sheegtay inaynu gudaha u sii gudbi karno. halka aynu taagannahay waa goob mugdi ah. hool dhowr tallaabo inoo jira oo isna mugdi ah ayay naga soo gaarayaan codadka dhaadheer ee muusiga ama heesaha habeenka lagu dheelayo. hoolka xaggiisa ayaynu u jalleecnay si aan naloo dareemin. waxaynu isla garanay inaan la jaan qaadno jawiga koobta uu qoobka ciyaarku ka socdo. waxa inoo muuqda dhammaan waa dhalinyaro, wiilal iyo gabdhaba leh. labalaba ayay isugu ciyaarayaan. dhididka iyo hawada kulul ee ka dhalatay ciriiriga ayaa durbadiiba waxa aynu la kulannay gabar uu naqasku ku xirmay. qoobka ciyaarkii ayaanan loo hakin xaaladda gabadhaasi keliya. dibadda ayay u saareen saaxiibo ay wada socdeen gabadha naqasku uu ku xirmay. waqtiga ayaa ah mid isa sii dabaguraya. heesba heesta ay dalbadaan tirada ugu badan ee dadka hoolka jooga ayaa la ciyaarayaa. qanacsanaan ayaan jirin marka lagu ciyaarayo heesaha Soomaaliga ah ee aan muusiga dheer ama lagu qoob ciyaari karin la shido. taas beddelkeeda marka la maqlo heesaha Sawaaxiliga ama kuwa kale ee Mareykanku u badan yahay, waxaa dhammaan istaaga dadka oo qoobka ciyaar qaylo dhaan lagu daray isdabadhiga. waxaynu adkeysan kari weynay kulaylka iyo dhawaqa dheer ee heesaha oo ay u sii dheer tahay ciriiri. waxaynu isku daynay inaynu u gudubno qol kale oo ka xiga dhanka xeebta. waxaa xiran ilbaabka laga galo, waxaana naloo sheegay in ay tahay qaybta VIP-ga oo ay geli karaan keliya lamaanaha ama wiilka iyo gabadha isla socda. intaas kadib kooxdeena KNN waxa aynu fariisanay goob iftiinku ku yaryahay
si aan u xoraansano hadba halkaynu aragno in ay inoo fursad roon tahay xog helisteeda gudaha hoteelka iyo in aan nagala dareemin ujeedadeena saxda ah ee ah soo gudbinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta hoteelada ku yaala xeebta Liido ee la sheego inay hoy u yihiin dhaqan xumada ka jirta gobolka Banaadir. Markii la gaaray waqtiga 12 habeenimo oo ay weheliso qadar 30 daqiiqo ah waxaa la demiyey dhammaan samiicadihii daarnaa, dadkuna waxaa lagu wargeliyey in waqtigu uu dhammaaday, booliiskuna ay gudaha u soo galayaan haddii dadku ay sii joogaan. Wadada ayaa sidoo kale kula kulannay ciidamo booliis ah oo bajaajta weydiinaya halka ay ka socdaan iyo sababta xilligaas ay u socdaan. sidoo kale saldhigga degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir waqtiyada subaxii ayaa lagu arkaa bajaaj la sheegay in habeenkii lagu qabto amin la mamnuucay socdaalka. horay ayay culimada Soomaaliyeed waxay kaga digeen dhaqan xumada taala hoteelada iyo maqaaxiyaha ku yaala xeebta Liido. maamulka gobolka Banaadir ayaa baaqa culimada kadib waxa uu amar soo saaray oo ku sheegay in wixii ka dambeeya 12 habeenimo aysan shaqayn karin hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala xeebta Liido. dadku waxay isweydiinayaan su'aasha ah maamulka gobolka Banaadir miyuu ogolaaday in dhaqan xumadu ay socdaan wixii ka horeeya 12 habeenimo.